بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaa jooga guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka dadka qaraxii muxuu ahay kilomitir 5 aaga Zoobe ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay guddigii loo xil saaray inay taakuleeyaan ayaa halkan jooga waxaan rajaynayaa qof waliba inuu magaciisa sheegi doono iyo meesha uu ka shaqeeyo annaga maanta ayaan hawl bilownay hadda waxaanu idin sheegi doonaa xisaabaadka lagu soo shubi doono lacagaha tabarucaadka dadka Soomaaliyeed ee meesha wax ku yeeloona tiradooduna aaday u badan tahay baahidooduna aaday u badan tahay dadweynaha Soomaaliyeed ee daawanaya ama dhageysanaya waxaan u sheegaynaa in maanta ay joogto annaga ma kala qaybsanin mucaarad iyo dawlo muxuu ahaa mataqaanaa iyo khilaafaadkii jiray oo dhan meel baan iska dhigaynaa waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo muslim ah oo dad kale oo walaalahooda u gurmanaya ayaynu nahay waxaanu codsanaynaa waxa weeyaan dadkaas in loo hagar baxo annaguna guddi ahaan waxaanu ballan qaadaynaa wixii la soo diro ee xisaabaadkaas aan hadda idin sheegi doono gudoomiye ku-xigeenka uu sheegi doono lagu soo shubo in sida ugu dhaqsaha badan ay dadka u gaaraan inaan lama suqmaasuqin in muxuu ahaa mataqaanaa gacantii mudnayd inay gasho taasna waxa weeyaan guddi dhalinyaro ayaa jira oo dadka tirakoob ku soo samaynaya meesha lagu bixinayana waxa weeyaan waa la wada joogi doonaa miidiyuhuna waa joogi doonaa xubno bulshada qaybaheeda kala duwan ka jirana way joogi doonaan hadda marka waxaan isugu jirnaa culumo muxuu ahay dhalinyaro waxaan isugu jirnaa iyo ururada bulshada dad ka socda ayaan isugu jirnaa marka dadka yagaasi waxa weeyaan guddi weyne ayaan ka mid nahay waxaas oo dhan waxa weeyaan marka way iskormeerayaan way isla xisaabtamayaan marka cabsiha ka qabinina wixii aad bixidaan inaysan u tagin dadkii u baahnaa sidaas ayaan dhihi lahaa haddana waxaan u dhiibayaa saaxiibkay maxamed isaga ayaa halkaas ka sii wadi doona bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ummadda Soomaaliyeed waxaan munaasabadan ugu sheegaynaa magacaygu waa maxamed yuusuf jaamac tigay waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka guddigan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaan u sheegaynaa maanta waynu ka dharagsannahay inaynu isku sheegno dhibaatadii ina ku dhacday ee shacabkeenna loo geystay ee uu cadowga u geystay inay xanuunka ay ina ku haysana qof walba Soomaaliya hadduu dalka joogo iyo hadduu dibadda joogo iyo hadduu miyi joogo iyo hadduu magaalo joogaba xanuunkaas waa uu wada dareemayaa maanta waxaynu taagannahay maalintii aynu isu gargaari lahayn maalintii aynu isku caawin lahayn maalintii aynu isku naxariisan lahayn cadowgu wuxuu ina tusay inaynu dalkan inaynu ku noolaano aynan xaq ku lahayn inay dhallinyaradeennu iyo carruurteennu inta wax ku bartaan oo jaamacada ka qalin jebiyaan dalkan inay ku raaxaystaan inaysan xaq u lahayn hooyo Soomaaliyeed inaysan xaq u lahayn dalkan intay carruur ku dhasho inay carruur ku koriso aabba Soomaaliyeed inuu dalkan carruur inta ku dhalo carruur inuu ku koriyo muwaadin Soomaaliyeed intuu guryo qurux badan oo dabaqyaa ka dhiso dalka dib u dhiso inuusan xaq u lahayn inuu ku raaxaysto in uu aabba Soomaaliyeed carruurtiisa bajaaj ku koriyo oo uu halkaa waxbarashadooda iyo caafimaadkooda dantooda ku daryeelo inuusan xaq u lahayn intaas aan tirinayo oo dhan waa intii meesha lagu laayay haddaynu Soomaalinahay maanta waxaynu taagannahay maalintaynu isku gurmanahayn maalintaynu isku dhaxariisan lahayn maalintaynu ficil u bedeli lahayn wax badan bay dhagaheenna ku dhacday Soomaaliyeey toosoo isku tiirsaday hadba kiina taag daran taageera waligiinay maanta inaynu cod dheer ku niraahno maanta waxaanu taageeraynaa dadkii Soomaaliyeed ee maatada ahaa ee masaakiinta ahaa ee halkaa lagu laayay kuwii lagu dhaawacay kuwii hantidooda lagu burburiyay qof walba Soomaaliya oo meel walba jooga inuu arinta ka qayb qaato maanta waxay taagan tahay inaynu cadowgii fariin u dirno oo wax alla wixii dhibaato uu inoo geystay inagu aynu dadkeena ka boogadhayno dadkeena aynu wax ka tarno dadkeena aynu ka caawino qaranka Soomaaliyeed arintaas uu istaagay ummadda Soomaaliyeedna meel ay joogtaba arintaas ayay maanta u heelan tahay wax kasto lagu kala duwan yahay iyo wax kasto lagu kala bedelan yahay meel walba Soomaaliya kamid ah qofkii jooga inuu arinta ka qayb qaato dibadda iyo gudahaba haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa akoonnada iyo lambarrada ee lagala soo xiriiri karo dadka ka qayb qaadanaya gurmadkan ee ummadda Soomaaliyeed waxaa hadda diyaara bangiga la yiraahdo Premier Banki waxa uu ku soo hagaajin karaa qofkii sadaqadiisa ku soo diraya lambarkan oo ah eber 2 eber 7 eber 36 eber 1 waa Premier Banki waa eber 2 eber 7 eber 36 eber 1 waa eber 2 eber 7 eber 36 eber 1 waa Premier Banki Amal Banki waxa uu ku soo hagaajin karaa qofkii raba 10 12 17 32 74 10 12 17 32 Amal Banki 10 12 17 32 74 waa Amal Banki
salaam banki wuxuu ku soo hagaajin karaa sadaqadiisa qof walba oo soomaaliya meel walba uu joogo akoonka ah 31 60 94 eber 9 31 60 94 eber 9 31 60 94 eber 9 sidoo kale EFC waxa uu ku soo diri karaa qofkii lacag ku soo diraya waana midda ugu muhiimsan qof walba oo Soomaaliya ah sida aad neefta ugu baahan tahay ayaa walaalkaaga dhibaatadu gaadhay uu gurmadkaaga u baahan yahay saacad walba waa diri kadhaa $1 baa diri kadhaa 10 senti baa diri kadhaa 20 senti baa diri kadhaa $100 baa diri kadhaa $1,000 baa diri kadhaa waa fursad waa sadaqo waa ilaahay agtiisa wax ku yaala waa wax waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaankaaga xasanaadka uu kuugu darayo marka saacad walba qof walba Soomaaliya waxaysta mid xoogsada ah mid maal qabeena mid walba waa mid u furan fursadda EFC Plus wuxuu ku soo hagaajin karaa eber 6 xal furuhu waa 8 78 81 11 eber 6 xal furuhu waa 8 78 81 11 eber 6 xal 8 waa furuhu 78 81 11 sahal qofkii ku daraya isaguna dhulka sahalka golis ay ka shaqayso waxa uu ku soo hagaajin karaa sahalka ah eber 9 eber 779 20 26 eber 9 eber 779 20 26 intaas waxaan rajaynaynaa waan idinku celcelin doonaa dadkii Soomaaliyeed ee maalintii qarax iyo dhibaatadu dhacday ilaa iyo hadeer ka sugayay qaranka Soomaaliyeed iyo gudiyada uu magacaabay meeshii ay sadaqadooda iyo tabarucaadkooda iyo garab istaagooda ummadooda Soomaaliyeed ee dhibaatadu ku dhacday ay ugu soo hagaajin lahaayeen ayaa hadda intaas loo soo diyaariyay qof walba sadaqadiisa halkaas ku diri karaa waana idin soo gudbin doonaa waana idinku celin doonaa waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ugu baaqaynaa maanta maalinta aynu kala hari lahayn maaha maanta waa maalintaynu midnimadeena muujin lahayn wadajirkeena muujin lahayn gobonimadeena iyo deeqsinimadeena muujin lahayn hiilkeena aynu muujin lahayn intaa waxaa ku xigta cadowga arxan darrada ina tusay ee dadkeena sida aan aragnay u solay oo u baabaashay hantidoodiina u burburiyay iyagana inaynu diyaar garowno dumar iyo rageenaba ina soo dareershay inaynu niraano oo maanta aynu dagaal adag la galno ayna sugin qarax labaad iyo mar labaad oo dadkeena la laayo baroorina waxba tari mayso qaylo dhaanina waxba tari mayso haddaynaan cadowga iska dhicin cid ina ka dhicinaysa lama arko inaynu dhammaanteen marka dagaal u diyaar garowno waxaan haddana u dhiibayaa hooyooyinka maamacaashan dhiibay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون dadkii dhintay ilaahay naxariistu jannaha ka waraabiyo inta dhaawacana ilaahay u boogadayo wixii waxa iga horeeyay waxa sheegay gudoomiye ku xigeenka Soomaalidu waa dad wada dhashay oo isku qoys isku guri ka yimid waana isku gurmataa hadda maanta waxaan u taaganahay in la isku soo gurmado oo muujisaan sidii awal baa annaga masiibooyinku markay dhacaan walow tonti ugu xumayd ugu kharaarayd ay tahay annaga is qaadan jirnay wiilasha gabdhaha odayaasha waxgaradka maanta waxay ila tahay wixii maanta waqtiga aan la dirirno oo ah sida ugu dhaqsaha badan inaan u soo dirno lacagaha waana mahadsantiin bismillaahi raxmaani raxiim horta aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa telefishinka qaranka waxaan rabaa inaan la hadlo dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan dadka Soomaaliyeed waad ogtiin dhibaatada dalkan ku dhacday horay ugu dhacday gadaalay uga dhacday intaana waxaa dadka furinay dadka Soomaaliyeed maanta waa maalinta ugu xumeed waa maalinta ugu dhibaatada badnayd waa maalinta 400 oo qof oo Soomaaliya hilibkoodu go'ay oo caruurtoodu korooyaan lagu horduugay maanta waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed oo gudaha iyo dibadda culamaa u diinka siyaasiyiinta ganacsatada meel kasta oo joogtiin dadka dibadaha jooga inaad u soo gurbatiin dadkan dhibaatada xoogga ku dhacday masiibo ayaa dhacday masiibana waxay leedahay in la isku gurmado oo dadku ay isku gurmadaan masiibada maanta waa inaad u soo gurmataan gabdhihii Soomaaliyeed oo dibadaha ku noolaa oo dadka Soomaaliyeed markii dhibaato ku dhacday u soo gurma jiray iyo dhalinyaradu u soo gurma jirtay maanta waa maalinta ugu xumeed oo dhibaato dhacday waa maalinta ugu liidatay maanta waxay maraysaa ciyaalka ardadahay oo dadka masaakiinta oo la laaya ka leedeen inay dariiqa ku ooyaan iskoolada ay samaanta dhiga karin waxa la ka rabaa maanta jawaab degdeg ah ma la raba inaad meel ku warwareegtiin cidii laba kol qada karsan laba goor cunto sax ka jirta waa inay laba karsataa waa inaad ku dadaashin dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada foosha xun ku dhacday maanta inaad garab qabataan waa dhici jireen qaraxiyo laakiin idima soo wici jirin kana waa mid aan laga gamba karin waa mid dhibaato ah
waa mid soomaali ku baaba'day waa mid carruurihii iyo haweenkii iyo culamaauddiinkii iyo aqoon-yahanada ku baaba'een waa mid aan maanta wax qabiilna ma ahan waxaana qabiil ma ahan waa wax qaranka soomaaliyeed ku dhacay gobol ma ahan soomaali meel kastoo ay degantay ku dhaceen marka waxaan ka codsanaynaa aniga magacayga caashishaa curugaasaa la yidhaahdaa waadi taqaanin intaan lacag aruurinayay laakiin maantay ma ahan tanu tii waa ka culus tahay waa ka awood badan tahay waa ka xoog badan tahay maanta waa inaad nafta ag dhigtiin dhibaatada soomaaliya ku dhacday si deg dega ayaan jawaab inkaga sugaynaa annagoo idiin ducaynayna weliba oonaan dadkaa inka xigin oy dadkiinna yihiin oy soomaali weyn yihiin meel kasta oo gobollada soomaaliya say u dhan yihiin dadka halkaa ku dhintay waa u dhammaystiran yihiin gobol ka maqan iyo tuulo ka maqan ma jirto muqdisho waad ogtiin waa caasimaddii waa dadkii dariiqda marahayo waa dadkii hoteelka deganaa waa dadkii ku ganacsanaya meel walba waa baabuurtii socotay qofna kuma badbaadin ummaddii maanta waxba kama badbaadin marka waa idin sugaynaa waxaana inka sugaynaa guul inaad qof walbay magacaagoo saddexan lacagta xisaabaadka ladiin sheego ku soo shub halkaasaa laynka fiirsanayaa soomaali oo dhan oo idin fiirsanaysa qaran iyo shacab meel kastoo laynka fiirsanayo lacagta aad soo shubteen saasaa loo fiirinayaa marka waa mahadsantihiin annagu waxaan ilaahay ka baryaynaa inay soomaaliya naqato tii isqaadata tii walaalowda tii midnimadii soomaaliyeed soo celisa siyaasad waa ka baxda waxaanu siyaasad ma aha waa ka baxda mucaarad iyo muxaafad ma aha midna waa dad baaba'ay oo loo kaalmaynayo maanta kaalmo deg degaha laynkaga baahan yahay meel kastood oo dunida daafeeda ka joogtaan meesha ugu dambaysa dunida meesha ugu dhowo muqdishoa kuwa jooga kuwa gobollada soomaaliya jooga qof kasta maanta waxaa soo gudinaa guddoomiyaalka gobollada waxaan ka codsanaynaa madaxweyneyaalka gobollada waxaan ka codsanaynaa si deg dega jawaab u soo bixiya guddi u saara dadku waa dadkii soomaaliyeed guddi deg dega u saara si dadkan wax loogu qabto dadku haddaan wax loo qaban dawlad iyo shacab iyo degme iyo waa ka awood weeyihiin waa dad dhibaato xoog luu ku dhacday waxaan ka codsanaynaa jawaab deg dega inaan inka helnaa wabilaahi towfiiq sheekh soomow baan haddan u dhiibayna بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إنا لله وإنا إليه راجعون دمان أمد الصوماليات مقع قدق أن كو سلامينا waxaan la qabaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo guddiga kamid ah iyo culimada kadaal ka hadli doonto oo ila joogta haddii aanu nahay guddiga oo gurmadka dhacdada tan waxaan ka codsanaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan shirkadaha hay-adaha ganacsatada haweenka culimaudiinka dhallinyarada aqoon-yahanka ardada bulshada qaybaheeda kala duwan maamul goboleedyada Soomaaliya gudaha iyo jaaliyada dibadda jaaliyadaha intii alla wax siiyey qof kasta oo ka mid ah inuu arrintan u soo dhaqtamo u soo gurmado aan iskarab istaagno masiibadu waa masiibatii ugu cusleed ee hadda dadka Soomaaliyeed marra waaxida intaas soo boqolo qofood la dilo intaas soo boqolo qofoodna la dhaawaco hal makaano waaxid intaas soo boqolo qofoodna la hanti tiro sida daraadeed masiibada noocaas weyn badan waxay haddii aan ku qaabilno wada jir way fuudaanaysaa waa maalintii maalinta taariikh bay leedahay waa maalintii la kala garan lahaa qofka muwaadinka ah qofka wadaniga ah qofka iimaanka leh qofka ahalkiisa u naxaya qofka islaamnimada iyo walaalnimada dareemaya qofka insaaniyadda leh qofka qiimaha leh iyo qofka kale maalintii la kala garan lahaa waay cid kasta oo Soomaaliya taariikh baa maanta qormaysa cid waliba waxaan jecelnahay oo Soomaali ah sida Soomaalida lagu yaqiin inay isu kaalmayso oo isu garab istaagto oo Soomaalidu taariikhda ay u lahayd isu heeliso ay waxaan ka rajaynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed shacab iyo xukuumad ganacsato dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan ka rajaynaynaa in maanta aanu garab istaagno walaalahayna dhibaatadu ku dhacday arqaamta lidin siiyey akoonnada la furay oo guddoomiyuhu mar kale ku mar kale saaxiibkeetii ku celi doono in aad ku soo shubtaan lacagaha waxaan xaqiijinaynaa haddaan culummada nahay inaan xaqiijinno inay gaartay dadka mudan waxaan xaqiijinaynaa dadka mudan inay gaarto waxaad soo shubtiin ay si dhaba u gaaraan waxaan idin caddaynaynaa in aan waxa soo baxa si shafaafiyad leh intaad soo dirtiinna oo ummaddu ay la baxdana aan soo bandhigno halka ay ku baxdana aan soo bandhigno una wada jirno saasaa daraaddeeda ka bilaabato dawladda sare ilaa maamul goboleedyada ganacsatada shirkadaha
hay-adaha ummadda soomaaliyeed jaaliyadaha gudaha iyo dibaddaba waxaanu rajahaynaa inaa baaqayna aqbashaan ilahay nabigeenu wuxuu lehy alayh salatu wasalaam alraaximuuna yarxamuhum araxmaanu irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa kuwa isu naxariista alla u naxariistaa waxaa nagala doonayaa inaan isu naxariisanno inaan isgarab istaagno in musiibada halkaas markaasay fuudaanaysaa musiibada culayska badan oo aragteen haddii aan u gurmano walaalahayna ee ahal ay walaal ay helaan way fuudaanaysaa laakiin waxaa musiibo kalaa qofka in musiiba ku dhacdo oo haddana walaal waayo taasna ma rajaynayno waxaan u mahad celinaynaa dowladihii iyo ummaddii soomaaliyeed intii hadda oo maaragtay garab istaagtay musiibatan oo dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ee dhibaatadu ku dhacday ku garab istaagto u mahad celinaynaa inta hadda kadib garab istaagi doontaan u mahad celinaynaa baaqayna koowaad iyo kayna labaad iyo kayna saddexaad waxaa waaye aan wada gurmano una gurmano dadka dhibaatadu ku dhacday aalkayna ah waa mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu haddana waxaan u dhiibayaa sheekh cali maxamuud xasan sheekh alwajiis oo guddiga xubinka ah بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku raacsanahay dhammaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xubnaha kale oo guddiga hadallada wanaagsan oo meesha ay ka soo jeediyeen waxaan rabaa kaliya 4 qodob inaan taabto qodobka koowaad horta waxa waaye dhibaatada gaartay dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ee muslimka ah haddii lagu gaarsiiyey fikir diin lagu sheegayo horta inuusan diinta islaamka shaqo ku lahayn oo nimankaasu diinta ay ka been sheegeen diinta islaamka waa diin naxariiseed waa diin dadka midaysa waa diin dal dhista waa diin ilaahay lagu caabudo waa diin masaajidda camirta ee ma ahan diin dadka lagu halakeeyo dadka kala geysa masaajidda gorfisa dadka qaxisa marka horta taas la ogaado oo qof kasta oo caadifo diineed ay ku jirtay ama waxyaabaha dhacaaya diin u haysatay inay kasoo tooba keento ilaahay toobada waa aqbalaa hadday al-shabaab tahay iyo hadday cid kale tahayba waxaan maanta leenahay jaanis haysatiin mashruuci 9 sano 10 sano dadka lagu dhibaayay meesha ku soo dhamaado waxay noqotay in dad Soomaaliyeed oo shacab lagu laayo magaalada dhexdeeda hantidooda la baabi'iyo la dilo la dhaawaco la burburiyo xadaaro iyo thaqaafo qabta islaamka dhexdiisa nimanka waxa sameey jiray niman leeyahay xashaashin iyo qaraamida oo baadini ahay weligood waxa ahlu sunna wal jamaa oo sameeyay hatta khawaarij baa la ka dhigo khawaarijti Sayyid Ali ibn Abi Talib dilaan hatta oo diinta islaamka ay ka gaartay mutadarrifnimadu inay khaliifatul muslimiin ay dilaan hatta waa ka xishoonayeen inay dad shacab laayaan inay hantidooda baabi'iyaan waxa nijaasta ay sameeyeen qomkan waa ka xishoonayeen oo bani aadamnimada ka baxsan diin iska badhaafe marka horta taas waa sheegaynaa waxa kale oo sheegaynaa dadka meeshaas ilaahay inuu jeclaaday oo shuhada ka dhiga waa shuhada nabigu sallallahu alayhi wasallam laba jeer ayuu u bishaariyay dadkaas mar wuxuu yiri qofkii ku dhintay hadmi iyo qarq iyo tafjiir iyo wixii lamida iyo buur la iska soo tuuray iyo biyo lagu hafado iyo wax kasta iyo dab iyo gabadha umul raacata iyo arrimahaas oo dhan iyo shil baabuur hadmigu kamid ah kulligood shuhada waay ajru shahiid ay leeyihiin حتى هدان لدقن أو لكفرن أو تتصلوا دوجا إلهي سبحانه وتعالى وأقبلها إن كسر اللي يرادو هدي فضدها يسالنتها إن لكفرن أو لدقوا أو لجود كذا أيا مارتي أيا أصله لكن هدي عصلات حتى شهداء واي أو حكم الشهيد أي الليهن مركل الله ونبي قب بشاري صلى الله عليه وسلم هذا نوحي ويري قف كستا أو ضد دين غلو كسمية سيد من كانوا كلاته أو متضرفين أو غالين أو غلو كل حجر أي دلان أمدله جنة يقليا فضوبا من قتلهم أو قتلوه marka dadkii la dilay oo nimankaas ay dileen ay kamid yihiin marka jannada ilaahay bay ku galayaan insha Allah marka laba jeer ay bishaaro sitaan sida daraadeed dadka Soomaaliyeed oo anagu aan kamidna iyo ehelada dadkaas ay ka baxeen waxaan leenahay qalbiga khayr u sheegta dadkaas ilaahay baa jeclaaday oo shuhada u doortay liyattakhidha minkum shuhada oo ilaahay quraanku leeyahay si uu idinkaga yeesho shuhado marka shuhada ilaahay oo samaystay waaye insha Allah laba jeer ay bishaaro nabi haystaan sallallahu alayhi wasallam in jannada ilaahay galayaan iyo inay shuhada yihiin taa markaan ka soo gudubno waxa soo haray wax qabadka waa sida culimadii iyo u sheegan aqoonyahanka iyo gabdhihii walaalaheen ahaa iyo dhammaan mas'uuliyiinta qaranka oo madaxweynuhu uga horeeyay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayr iyo gudoomiyaha baarlamaanka jawaari iyo dhammaan iyo gudoomiye cabdi xaashi iyo mas'uuliyiinta qaranka oo dhan iyo golaha wasiirada iyo dhammaan xubnaha aqoonyahanka culimaa diinka wax badan baad dhageysateen gobolka banaadir oo runtii aad u shaqeeyay shaqo weyn qabtay aan caadi ahayn wasaaradda warfaafinta oo aan aad uga mahad celinayno habeenay maalin dhalinyaradaas ay taagan yihiin wiilasha dhalinyarada ah ee maalinta jugta ay dhacday iyo gabdhaha dhalinyarada ah oo daba taagan inay dadkii diiwaan geliyaan inay u gurmadaan inay u tagaan inay la noolaadaan inay yani meydka wax ka aasaan inay dadka quudiyaan inay dabka shidaan oo aan leylan oo nahaaran nasanayn runtii Soomaali xaaditadan waxay bartay oo darsiga laga qaato ugu weyn oo yahay in Soomaali ay nooshahay wali oo Soomaalinimada ay aad waxay u tahay oo dadka Soomaaliyeed markay xanuun arkaan soo baxaan as-sadiiqu yawma shidda leeyahay maalinta shiddada ayaa sadiiqa la bartaa marka Soomaali iidoon qabiil isu fiirin oo madab isu fiirin oo lahjo isu fiirin ayay walaaltinimo isu wada gurmatay
bahda iclaamkana aad ayaan runtii ugu mahad celinaynaa sida ay taqdiyada leylan wa nahaaran ay ugu jiraan oo wasiirkooda horkacayo iyo dhallinyarada la shaqayso actifeka haddaba waxaa waaye duruus in aan ka qaadanno waaye waxay yidhaaheen carabtu ruba daaratin naafica mid dhibaato oo haddana soomaalina waxay tidhahdaa shar hoosteed khayraa ku jira marka waxaa dhici karta dhibaatadan sharta oo dhibaatadaas ku gaartay ilaahay subxaanahu wa tacaala dad badana inuu jannadiisa ku geliyo dalka soomaaliyana uu kuwa badbaadiyeba oo ay albaabkii furaha u noqoto badbaadada sidaa daraaddeed waxaan leenahay dadka soomaaliyeed dareenkaas mideeya ha ogaadaano sidaas xanuunka u mideeyey inay soomaalinimada uga dhexayso inaan gobol gobol iyo xisbi xisbi iyo luqad luqad iyo danaysi gaara iyo siyaasi dan leh inaan loo kala tegin ee dadku soomaalinimada isugu yimideen maanta ay ku wada socdaan in dadka soomaaliyeed wiilasha dhallinyarada iyo gabdhaha dhallinyarada iyo aqoon-yahanka iyo culummada iyo kulli ay hor socdaan maamooyinka iyo ragga odayaashaaba inaan sidaa annagoo midaysan inta ka bilowno labada shabeelle oo banaadirna insha allahu iyo waaba iska hagaagsan tahay inaan aagaga balaayadu ka soo gelayso inta aadno annagoo wada soconno inaan iska guurno keliya haddii la guuro keliya xataa idoo xabad ridin wallahi wiilasha xukunka meelaha ku gambanaya waa baxayaan iyo meelay wax ka soo xirxirayaan waa la iska guuraa kale horta marka hore waxaa loogu yeerayaa kaalayaa laleeyahay dadkiina soo dhex gala soomaaliya boqolkiiba boqol muslim waaye iyaga agtooda laakiin boqolkiiba 90 gaalo waaye soomaali nasiib darro xataa gaaladii inaan muslim hayno aqrisan yihiin laakiin iyagu soomaali haddaan soomaali islaam uma aqrisana dadka dhan waa murtadiin oo diinta mar hore ka baxeen leeyihin weligay wax ka liita ma arkin marka walaalayaal waxaa la rabaa maanta in iyo la guuro la dego iyadoo soomaalinimo lagu socdo madaxweynaha iyo wasaaraha iyo wasiirada ay hor socdaan jenaraalada iyo culummadu in iyo la iska guuro la iska socdo ilaa sheekh axmed madowala la soo qadeeyo xaggana la socdo ilaa puntland iyo madaxweyne gaas agtiisa laga soo casheeyo oo dhammaan wixii meelaha ku jiro kudkudaa idoo la guuraayo la dardara keliya laakiin haddaadan adigu guurin oo aadan degin adaa lagu soo guuraa waana midda maantan haysata taasna istiraatiijiyada dowladda laga rabaa waxaan mar kaleeto ummadda ugu baaqayaa maanta jaaniska jira wuxuu yahay soomaaliya dawlad shacabku ay taageersan yihiin oo dareenkoodu midaysan yahay oo bislaatay oo dawladihii hore ay soo diyaariyeen dawladihii hore madaxweyne cabdiqaasim madaxweyne cabdullaahi yuusuf madaxweyne shariif madaxweyne xasan sheekh nin walba masaafo fiican buu dhaqaajiyey dawladnimada dadkana fadligooda lama inkiro laakiin maanta madaxweyne farmaajo markuu yimid dadka dareenkooduna waa midoobay meel bay u wada jeesteen marka ugu horraysa waxaan leenahay diintuna waa faraysaa xataa xukuumad daciifa xukuumad la'aanay dhaantaa dawladda waxaa la rabaa in dawladnimada la ilaaliyo oo laysku duubnaado oo dadku ay meel u wada jeestaan waa la rabaa oo cuqdadaha iyo wixii khilaaf keenaya layska dhaafo midda labaadna waxaa la rabaa wax kasta oo ummaddeenna dhaawacaya midnimadeeda ama geedi socodka dhaawacaya waxyaabahaan aragna waxaa ka mid a khilaaf yaroo siyaasi hadduu bilowdo argixisadu ka faa'iidaysataa maxaa la shaatiyaal badan ay ogyihin in lasoo wada gashanaayo marka waxaa la rabaa walaalayaalo isku duubni inaan ku dhaqaajino dalka in la dhisaa la rabaa waxyaabaha sida tigay u sheegaya haddaatay waxaa waaye guryaha dheerdheer oo dabaqyadaha magaalada ka dhismaaya iyo suuqyada sii furmaaya iyo dhallinyarada soo noqonaysa ilmaha dadka dhinta waxaa ka mid ahay dad ingiriiska iyo maraykanka ku dhashay oo wax ku bartay oo dalka u yimid inay jaamacadaha waddankooda ku dhigtaan haddaba waxaa la rabaa in aan iska dhigno dad qiimo leh oo waddaniyiina oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacda waxaan ka bilaabaynaa inaan dadka walaalaheenahay ee dhintay ilmahoodii iyo yacni yatiimtoodii aan ka bilowno inaan ku xijinno kuwa dhaawaca inaan dhadhayanno inaan guryihii baaba'aya aan dhisno hantidii ku gubatay inaan dadkii aan ciwad celin siinno inaan halkaasna ka dhaqaaqno masiira waddaniya oo soomaalinimo ah oo islaamnimo ah oo aan wax ka sokay lahayn ilahayna waxaan ka baryaynaa inuu khayr badana siiyo qadaryar ayaan kusoo dhaweynayaa بسم الله الرحمن الرحيم annaga waxaa ka mid ah dhalinyaradii Soomaaliyeed u soo gurmatay dhibaatadii ka dhacday maalintii Sabtida waxaan ka mid ah dhalinyaradii Soomaaliyeed u soo gurmatay maalintii dhibaatada dhacday ilaa habeenkii laga bilaabay ilaa subaxii waxaan wadnay dhiigag inaan u aruurino dhalinyaro badan ayaa waxaan soo geynay isbitaalada ilaa isbitaalada ay qaadi waayeen dhiigagii aan aruurinay iyo dadkii dhiigagga laga qaaday kadib waxaan sameynay center information aan sameynay oo waxaan sugu keenay tiiman badan oo dhalinyaro ah oo ugu horeeyaan dhaqaatiir ugu horeeyaan dhalinyaro kale oo macnaha ku fiican muxuu ah social media iyo website-yada ku fiican iyo dhalinyaro kale oo sida gurmadka kale goonida ku fiican marka dhaqaatiir badan aan helnay oo dhalinyaro u badan dhammaan waxay wada tageen isbitaalada wada tageen isbitaalada kadib waxay noo keeneen warbixinay noo keeneen dad dhaawacyadooda aad halis u tahay kadib waxaan la wadaagnay hay'adaha caalamiga la wadaagnay waxyaalihii aan noo qabsan waxaa ka mid ah inaan sameyno call centers oo dadka dhibaatada haysata ama dadka ka maqan yihiin ay kala soo xiriirayaan ehladooda waa dadka waa la diiwaan geliyey ilaa 63 qofood oo la yahay ayaan diiwaan gelinay dadkaasna kadib waxaan raadinay eheladoodii iyo meelihii ay ku kala maqnaayeen hadday isbitaal jiifaan iyo haddii kale intoodii badan waa la soo helay hadda qof ma jiro isbitaal jiifo aan ciddiisa la garanaynin waxaan isku xirnay cidihii iyo dadkii bukaanka ahaay oo dhaawac ahaay waan isku xirnay sidoo kale waxaan qabanay
waxaan aruurinay muxuu ahay cuntooyina u geynay dadkii dhibaataysnaayo isbitaallada jiifeen dadkooda ehelkooda qaarkood kama warhayn qaarkood waa dan yaraayeen awood uma lahayn in ay helaan wax qutulyoomka ay ku joogi lahaan isbitaalkii xataa waxaan u geynay qado iyo quraac iyo cashaan u wada geynay dhammaantoodna maanta qof baahan oo isbitaal jiifa ma jiro waxaa kaloo qabannay inaan aruurinay meedadkii liis aan u samaynay dadkii dhinteen oo la garanayey oo la yaqaanay qaarkood liis dheer aan u samaynay dadkii maqnaayena liis aan u samaynay waan diiwaan gelinay sidoo kalena dadka xaaladooda aadka u xumeyd aadka u darneedna inaan tiro koob gooni aan ku samaynay shalay 34 qof ayaan diiwaan gelinay annagana loo xil saaray oo hay-ad muxuu ahaa wasaaradda caafimaadka kala xiriiraynay iyo ciid muxuu ahaa dhallinyaradeenna gaarka oo caafimaad ka howlaneed dhammaantood 34 qofood oo xaaladooda aad u xun tahay oo qofna qof kale oo ehelkooda ahayn aan lagu xulaynin oo lagu dooranaynin macnaha ninkaana wasiir la dhashay ama ninkaana nin rafiica la dhashay oo waxaa lagu xulayay qofka dhaawaciisa ah waxaanu ilaahay noo sahlay in 34 aan qaadnay saakoo kale waxaa la qaaday 23 la qaaday sidoo kale marka dhallinyaranimo ayaa ciyaareen oo inta awooddooda ahayd ha noqoto information technologyda ay aad u isticmaali karaan sida social media inay wargeliyaan sida inay geliyaan maxaa website-yada inay geliyaan hadda waxaan abuurnay akoonno oo lagu tabarucaadka lagu talagalay kulli dhammaan waxaan ku faafinay social mediaha qofkii raba wuxuu ka heli karaa gurmad 252 gurmad 25 oo facebookeenna ah gurmad 252 ayuu ka heli karaa EVC hadday noqoto Premier Bank hadday noqoto Amal Bank hadday noqoto iyo xawaaladaha kale lagu soo gudbin karaa sidoo kale Twitter waan sameynay gurmadka 252 gurmadka 252 Twitter nagala soo xiriiri karaa sidoo kale waxaan sameynay forms oo website-da laga heli doono gurmad.so oo waxaa ka heli kartaa qof kastoo qofkiis ka maqan yahay sawir ha noqoto waan ku haynaa waxaan ku haynaa magacyadii dadka liiskii dadka laga maqan yahay marka anaga inta imkaaniyaadkan iska yaryahay iyo awooddeena yar tahay laakiin dhalinyaro ahaan waxaan isku xilqaannay in aan howlaha soo qabanno maanta ugu dambeysay ilaa 200 oo dhalinyaro ah ayaan sameynay isku aadinay oo fulaanada u xirnay oo ka qayb qaadanaya qaybta nadaafadda iyo baaridii dadka wax ku macnaha weli ku hoos jiro macnaha burburkii waxaa ka qayb qaadanayay dhalinyaro badan ay ahaayeen oo iskood isku xilqaamay oo aan cid mishaar ku siinaynin oo cid macnaha ka socon hay-ad ka socon gaar ah oo macnaha maanta iskood isku abaabuleen ahaayeen marka dhammaantood waxay ka qayb qaadanayaan nadaafaddii iyo raadintii weli dadkii maqnaa marka dhalinyarada waxaan leeyahay ha lasu soo gurmado lacagta ha la bixiyo EVC aa jiro qofkii dollar haya dollar ha bixiyo qofkii 10 dollar ha hayo qofkii ehel kale ama asxaab kale oo yaqaano ama waayeel yaqaano ha caawiyo hal is caawiyo akoonnada ha lagu soo diro mid kale waxaan sheegaya dhalinyarada si gaar uga dardaarma waxay tahay in ay macluumaadka ay ka helayaan gurmad 25 gurmadka inay sii tweet gareeyaan ama sii share gareeyaan facebookooda iyo barahooda si gooni ah macnaha inaan isgaarsiino dhibaatada nagu dhacday mid aad u yar ma aha runtii waa mid aad u weyn waxa dhintana dhalinyarada dhimatay inta badan informationka ahayn waxay sheegayaan inay u dhaxeeyaan da'da ah 9 jir ilaa 35 jir ah taas macnaheedu waxay tilmaamaysaa waxa meesha ku baabaa inay ahaayeen dhalinyaro marka dhalinyarada macnaha waxaan ka rabaa inaan doorkeena ciyaarno aad iyo aad u mahadsantihiin guddiga qaran waa mahadsan yahay hal erayaan kala hormaraa guddoomiye adoo mahadsan guddoomiye wax kaliya aan rabay oon ku soo laabtay wax kale ma ahan waxaa jiray oo u mudan in la sheego saakay waxaa magaalada Melbourne isugu yimid jaaliyad aad u ballaaran oo Australia maartay ah oo arrintan daraaddeed u kulantay oo magaalooyin badan isaga soo dhoofay runtii maanta guddiga way la hadleen waxay aruurinayeen dhaqaale aad u fiican waxaa xiriiri ka ahay oo doorteen inuu contacti u noqdo alakh ninka dhalinyarada ah oo active-ka ah cabdiraxmaan maxamed marka jaaliyadaasna guddoomiye annagoo codkaaga magacaaga maaragtay adeegsanayna aad baan ugu mahad celinaynaa waa jaaliyad active ah guddiga xataa taakuleynta ciidamada qaranka Soomaaliyeed jaaliyadda ugu horreysay oo 8,000 oo dollar soo gaarsiisay bay ahayd maantana haddana arrintan jaaliyadda ugu horreysana soo wacdo runtii oo si aad u ballaaran u fadhida magaalada Melbourne oo arrintan lacag u aruurinaysa ay ahayd waana rajaynaynaa labada maalmood soo socota gurmadkooda inuu soo gaari doono guddiga guddoomiye Cabdullaahi Maxamed Shruuc guddoomiyaha ka yahay intaas in baraarujiyaan rabay waxaa kaloo rabaa guddoomiyuhu inuu magaca guddiga oo maaragtay insha Allah ugu mahad celiyo dawladda Turkiga iyo waxyaabaha ay qabatay intaanan ustaatigay aanan ku celin haye Sacuudi oo xogayaha guddiga bismillaah bismillaah aad ba u mahadsantihiin hadal intiisii badnaa waa la sheegay runtii maanta waxaan aniga qof ahaanteeda toos ula hadlayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan hadday tahay Soomaaliya hadday tahay qurbaha shantiisa qaaradood dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa lagu xusuustaa gurmadkii ay u gurmadeen abaarihii dadka Soomaaliyeed waxaan ka mid ahayn dadkii la shaqeynaya runtii haddii aysan iyagu soo gurman lahayn waxaan aaminsanahay culayska abaaraha in wax badan ay ka qabteen dhinaciisa
maanta waxaan rabnaa annagoo oo sidii shalay aan u duubneen u duuban inaan dadka soomaaliyeed ee caruurtooda ay meesha ku waxyeeloobeen inaan u gurmano in cunug soomaaliyeed uusan waxbarasho la-aan usii joogin walaalkiisa ama waalidkiisa dhintay dartiisa in hooyo dabka u shidnaay caano gadaysay ama ilmaheeda wax u raadsan jirta inuusan ka demin in dhalinyaro soomaaliyeed annagoo joogna uusan waddankii annagoo wada joogna waxbarasho la-aan ugu dhicin. marka waxaan xoog saaraynaa dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaa laidinkaga fadhiyaa gurmadkii shalay aad soo gurmateen inaad mar kale soo gurmataan aan waalidiintii iyo walaalihii iyo qoys walba oo soomaaliyeed ay waxgaareen inaan waxgaarsiino sababta annaga u gurmanayna wax kalena ma aheen waxay tahay dadku way naga dhinteen waan aasanay dhalinyaradii dhulka joogta runtii dadaal badan ay sameeyeen dhulkii xitaa way dhaqeen laakiin idinka waxaa laidinkaga fadhiyaa waxay tahay inaad dhaqaalihii iyo xooggiina iyo caqligiina intii shalay aad nala garab taagnaadeen aad maantana nagu soo garab siisaan waxaa loo baahan yahay arrintan waa arrin deg deg ah waa arrin dhaawacii iyo dhibaatadii weli ay qoyan tahay baahidana waxaa la daboolaa inta ay qoyan tahay ay faa'iido leedahay inaan wax ka qabanno marka hadalka ma sii badinaayo waxaan idinkaga fadhinaa weliba dhalinyarada aan xoogga ku saarayaa roolkiinii shalay weli maanta waa bannaan yahay mar walbana idinku idin sugayaa annagaa iskale waddankan waxaan rabnaa inaan wax walboon ka qaban karno caqli cudud iyo xoog iyo maal intaba isugu geyno dhalinyarada shanta qaaradood joogto waxaan leenahay intii shalay aad samaynaysan iyo in ka badan oo deg deg ah weliba laidinkaga baahan yahay aad baa u mahadsantihin salaamullah